Shan waxyaabood oo aysan ogeyn dadka iscaataynaya. Haddii aad tahay saaxiib qof doonaya inuu iscaateeyo shantan arrimood ee muhiimka ah inaga hoo. Si aan kuugu sheegno muuqaalka inoo sheer garay, laag inoo saar oo codsigayna inoo fuli, arrinkaasina waa inoo sharaf. Sidoo kale waxaa inoo sharafa in adiga oo buuran aad inagu xirnaato, haatanna aad doonayso inaad iscaatayso. Waa kaftane aan ku bilaabo sheekadeenna. Arrimaha kuu sahli kara inaad iska yarayso miisaanka. Cashiro badan oo kala duwan ayaad arkaysaa marka aad u soo jeesato inaad miisaanka iska dhinto. Tala walba qaab bay u shaqayn kartaa, balse dadaalka adiga ayaa laga rabaa sababtoo ah ma jiro qof 1 kiilo iska jari kara. Marka afka laga sheegayo iscaatayntu aad bay u fududahay, hase yeeshee dhab ahaantii ma ahan arrin sahlan in la fuliyo. Waa sax inaad iscaatayso marka aad hilib badan leedahay si uusan caafimaadkaada khatar u gelin. Laakiin shanta arrimood maskaxda ku hayso waxay kuu sahlayaan inay si cajiib ah u guulaysato yoolkaagana iscaataynta ahna aad gaarto. 1. Dadaal muddo dheer ah. Haddii aad moodayso inaad isku caatayn karto maalmo, isbuucyo ama bilo kooban, waad khaldan tahay saaxiib. Waa shaqo u baahan inaad maskax ahaan u niyeysato, xisaabtana ku darsato inaysan waqti kooban ahayn. Dadaalkaagu ha ahaado mid aan waqti ku xirnayn balse natiijo ku xiran. Taas micnaheedu waa inaadan caajisin marka uu maalmaha hore kuu muuqan waayo wax isbedel ah. Socodsiinta caloosha. Dadka ku fakara inay miisaanka iska yareeyaan waxaa badanaa loo sheegaa in hawsha ugu muhiimsan ay tahay socodsiinta caloosha. Waxay aaminsan yihiin in haddii ay calooshu baxdo uu bilaabmayo hanaanka caatanimada, balse marka ugu horeyso waxaa laga rabaa in calooshaada socoto. Qof buuran iyo qof caata ah labadaba waxaa ku xiran caafimaadkaaga guud. Waxa aad cabayso waa muhiim. Sidoo kale waxaa muhiim ah isbedel yar dhib ma keeno. Sidoo kale waa inaad ogaataa isbarbardhig inaadna samayn weligaa. Natiijada aad isbuucan heshay iyo tii isbuucii hore ha isku fiirin. Khasab ma ahan inay isku mid ahaadaan. Kaliya xaqiiji inuusan dadaalkaaga isdhimin. Waxa kale oo aad iska ilaalisaa inaad ka niyad jabto isbedelka oo aad u yar. Saaxiib yaal soo dhawaada sheekadan xiisaha badana sheer gareey mahadsanidin.